xukuumaddu waxa ay si rasmi ah u go'aamisay in jamhuuriyadda Soomaaliland martigeliso munaasabadda xuska xeerka ciise oo ka qabsoomi doonta magaalada Sayla 14 Disembar 2025. alxamdulillaah rabbil caalamiin, ilaahay baa mahadle. maanta ay bishu tahay 4 bisha Disembar 2025. waxaan halkan ka akhriyi doonaa war saxaafadeed ku saabsan go'aan ka soo baxay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku saabsan arrinta munaasabadda xeerka ciisaha. ujeedadu waxa weeye martigelin munaasabadda xeerka ciisaha. xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku dhisan mabda'a nidaam dawladnimo casri ah oo waxtar u leh bulshada, ku dhisan nidaam wada tashi iyo nabad ku wada noolaansho, waxay si joogto ah mudnaanta u siinaysaa xalinta khilaafaadka iyo dhismaha kalsoonida bulshada, iyada oo ilaalinaysa qiyamka, dhaqanka iyo waayo-aragnimada soo jireenka ah ee ummadani leedahay. mudnaanta ugu weyn ee xukuumaddu ay leedahay waa midaynta bulshada, xoojinta wadajirka qaranka iyo kobcinta isku duubidda ummadda. arrimahaas oo ka muuqda dhammaan howlaha ay ka wado gobolada dalka. dadaaladan joogtada ah waxa ay ka turjumayaan himilada qaranka ee ah in dadka Soomaaliland ay ku wada noolaadaan nabad, ixtiraam, cadaalad iyo midnimo ujeedo wadaag ah, taas oo ah tiirka ugu muhiimsan ee qarannimadeena. sidaas awgeed, kadib la tashiyo qoto dheer oo lala yeeshay dhammaan dhinacyada ay khusayso arrintani, qiimeyn amniga oo dhammaystiran oo ku salaysan mas'uuliyadda dawladnimo, xukuumaddu waxa ay si rasmi ah u go'aamisay in jamhuuriyadda Soomaaliland martigeliso munaasabadda xuska xeerka ciise oo ka qabsoomi doonta magaalada Sayla 14 Disembar 2025. go'aankani waxa uu cadeynayaa in xukuumaddu leedahay dhammaan mas'uuliyadda amniga qaranka. xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa iska leh mas'uuliyadda hagista, maamulista, fududeynta, la socodka diyaarinta qabanqaabada munaasabadan iyo sugidda ammaanka, iyadoo ilaalinaysa xeerarka dalka, habraacyada amniga, sinaanta bulshada iyo qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland. dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu si cad u reebay jiritaan xuduudo beeleed, marnaba mana ogolaan doono xuduud qabiil ama beeli leedahay oo ka dhex samaysan jamhuuriyadda Soomaaliland. taa waa qeyr dastuuri, mana dhacayso, mana dhici doonto. hadda ka horna ma dhicin. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu gogol nabadeed oo ballaaran u fidinayaa bulshada walaalaha ah ee ku wada dhaqan dhammaan gobolada Awdal iyo Salal, gaar ahaan bulshada walaalaha ah ee wada degan degmada Sayla, isagoo adkeynaya muhiimadda ay leedahay in la helo jawi ay ku kulmaan beelaha walaalaha ah si ay uga dhalato is-aaminaad bulsho iyo wada tashi ku dhisan maslaxadda guud ee dalka. tallaabadani waxa ay astaan cad u tahay midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliland, taasoo ku salaysan geedi socodka guud ee raadinta xasilooni bulsho, isu tanaasul, mujtamac iyo dawladnimo mas'uuliyad leh. allah mahad leh. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.